runtii maanta waxaanu joognaa xaflad qaaliya oo ay ka qalin jabinayaan dufcaddii tobnaad ee ka qalin jabita jaamacadda golis faraceeda berbera runtii ardayda tiradoodu dhan tahay 8 arday iyo 6 ardayda masterka ah runtii dhammaan waan hambalyeeynaa waxaan leenahay ilaahay cilmiga barateen idinku anfaco oo noqdo kuwa dalkooda iyo diintoodaba ku anfaca runtii hadalka muhiimadiisu waa mahadnaq iyo hambalyeynta xafladaynta ardayda qalin jabisay runtii waxaan gaar ugu mahadnaqayaa macallimiinta iyo waalidiinta dadaalka badan la soo galay ardayda muddada dheer waxbarashada soo waday waxaan gaar ugu sii mahadnaqayaa wasaaradahan anigoo ku hadlaya afka wasaaradda horumarinta caafimaadka ardayda ka qalin jabinaysa kuuliyadaha kala duwan ee caafimaadka midwayfariga iyo lab technicianka runtii waxa farxadii ah in ardayda ugu badan ama nambarka ugu badan tirada 8 ka ay qalin jabinaya ay ka qalin jabinayaan kuuliyadaha caafimaadka runtii wasaaradahan farxad bay noo tahay aad baanaan ugu mahadnaqaynaa dhalinyarta iyo ardayda kala duwan ee baratay cilmiga caafimaadka 27 arday ee midwayfariga iyo 21 arday ee lab technicianka 8 marka loo eego runtii kuuliyadaha caafimaadku aad bay u badan iyaga ka badan waxaan gaar ugu mahadnaqayaa gudoomiyaha jaamacadda golis naasir xaaji cali shire oo runtii dadaal badan geliyay sidii uu soo saari lahaa arday kala duwan oo ka qalin jabisa kuuliyadaha caafimaadka runtii waxa farxad weyn ah inaan ka mid ahaa loodkii labaad ee ka qalin jabiya jaamacadda golis qaybteeda caafimaadka 2013 bishii tobnaad runtiina maanta aan ku sugannahay inaan maanta aan la joogno ilaahay nagu simo qalin jabinta dufcaddii tobnaad waxaan runtii halkan ka marakacayaa in ardayda ka soo baxda kuuliyadda caafimaadku taya ahaan iyo aqoon ahaanba ay dhisan yihiin runtii waxaa dhici jirtay gobolka saaxil intii aanay jaamacadda golis soo saarin ardayda caafimaadka haddii xarumo caafimaad la furayo ama haddii ay soo kordho shaqooyin la xidhiidha caafimaadka in la waayo cid ka shaqaysa runtii waxaa maraka ahay oo aan joogay in looga yeedhi jiray gobollada Murujeex iyo Awdal cid ku shaqaysa fiilka caafimaadka wixii ka dambeeyay 2013 intii jaamacadda golis soo saartay ardayda caafimaadka dhammaan waxa laga maarmay in loo baahdo ama ay baahiyaan u imanin in ay meesha ka baxdo baahidii taalay dhammaan maanta waxa xarumaha caafimaadka dibadda iyo gudahaba ka shaqeeya waxa weeyaan ardaydii ka baxday ama ka aflaxday jaamacadda golis runtii aad baan ugu mahadnaqayaa waan soo koobayaa waxaan aad u taageerayaa oo aan aad u soo dhawaynayaa hadalkii gudoomiyaha jaamacadda inuu soo kordhinayo kuuliyadda dhakhaatiirta oo yidhi sanadkan haddii ilaahay dha kuuliyadda dhakhaatiir baan ku soo daraynaa wasaaradahan aad baan u soo dhawaynaynaa dhammaantiin salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu